waxaa saakay magaalada Muqdisho iyo dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo Puntland si rasmi ah uga bilowday imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare kaas oo ay qaado wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka. Ra'iisul Wasaaraha xilka ka sii degaya ee xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo ay galayaan kumanaan arday ah oo sanadkan dhameystay waxbarashada dugsiga sare. Ra'iisul Wasaare Roble oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ardayda Soomaaliyeed u daahfuro imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare, isagoo u rajeeyay guul ardayda galaysa imtixaanka ay qaadayso xukuumadda. Ra'iisul Wasaaraha ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda imtixaanka shahaadiga u fariisanaysa guud ahaan dalka. Waxa uu xusuusiyay in mustaqbalkooda uu gacanta ku jiro loogana baahan yahay in maanta ay sii diyaarsadaan sida uu mustaqbalkooda u ekaan doono. waxaan rajaynayaa imtixaanka la soo dhejin doonana inaad buundo fiican oo wanaagsan aad ka keentaan noloshiina aad hore u marisaan insha Allah dalkaana aad wax u tartaan waalidkiina ku soo tacbi tirbeelayna aad ka war haysaan. waxaan leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee soo waxbaray ardaydaas idinkana waad mahadsantihiin. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay u soo duceeyo ardayda Soomaaliyeed ee xilliga sanadkan 2022 ka soo dugsiyeedkii afraad mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay waa noo furan yahay imtixaankii hore ha loo. Sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Abuukar Carab ayaa waxa uu sheegay in sanadkan ay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ay u fariisteen 35,000 oo arday oo dhameystay waxbarashada dugsiga sare. Wasiirka ayaa cadeeyay in imtixaanka shahaadiga ee dowladda uu ka bilowday gobolka Banaadir iyo 4 dowlad goboleed oo kala ah Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Jubbaland, isagoo xusay in ardayda ugu badan ay ku galayaan gobolka Banaadir kuwaas oo tir ahaan gaaraya 25,000. mudan ra'iisul wasaare maanta waxa farxad weyn noo ah inaan imtixaankii fasalka afraad oo ay ka qayb galayaan 35,000 oo arday oo 4 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ah noo daahfurto iyadoo sida warbixinta lagu bixiyay magaalada Muqdisho ardayda ugu badan ay ku galayso ilaa 25,000 arday ah. waxaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa howlwadeennada wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare, howlwadeennada wasaaradaha maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka, waalidiintii ilmaha ku soo tacbay oo u soo diyaariyay inay maanta imtixaanka fadhiistaan, ardayda soo diyaar garowday, ciidamada booliska oo iyagana sanad walba heegan u ah inay amniga sugaan. dadkaas oo dhan waan u mahadcelinayaa. waxaan kaloo u rajaynayaa ardayda guul iyaga iyo waalidkoodba in imtixaanka Ilaahay u fududeeyo oo ay baasaan oo 2 bil kadib ay aad ugu farxaan